بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداد كعصبتها سبسكرايب تسارو جنباليل كنفرو سي أي برامجتو هدبا أي كوسو غاران إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى ما توحي نكهل لدونا موضوع عادي مهمة وانا حنون خلو يقانو مرض الصرعي سوحدينتا وحا كان إيا أسباب تيدا سؤال بدن أولالوها إيغا سويديين إن شاء الله وحان ربائنا سيكوبا وشرح حنون كاس لبا سيابو أما لبا قاب أيو حنون كاس كوي مادة مروى مادي وحالة نفسية ودكتورك عادي يا قابل سن وانا خلل كوي مادة مسكحة إيا جهاز العصبي نرفها أو مركا شقوين كودي إيا أنقها مسكحة سيدا يراهدان علماء دخاتيرتو أنقها مسكحة أو أنا شقدي سينين جهاز العصبي marka waa xaalad maadiya dhakhtarka ayaa lala xiriira lala tashada isaga marka cilaajaadkiisi iyo hawlihiisi qofka siiya ama xaaladda aan anigu rabo insha Allah inaan wax yar kooban ka tilmaamo waa xaaladda loo yaqaano sarcal jinni ma sababa jinku qofka in uu maskaxda ka qabsado wal ciyaadu billah ka bacdina uu qofkii uu dhacayo saacado ama waxa weeyaan daqiiqado ama 20 daqiiqo ilaa nus saaca inuu qofka iska jiifo isagoo markaa biduun ay xaraka aan sameynaynin jawaabtu waa haa waana akthar xaaladaha ugu badan ee bulshada qeybaheeda kala duwan haysta sida awlaadda caruurta yar yar sida dumarka sida dadka odayaasha waaweyn xaaladaha ugu badan ee haysta ee ku sababaya inay dhacaan oo suuxaan in uu yahay wax loo yaqaano masal caaridka waa nooc ka mid ah masaljaanka laakiin wuxuu isagu caan ku yahay in uu qofka maskaxda ka fariisto masal caaridkaasi laba siyaabo mid ka mid ayuu ku yimaadaa imma can dariiqati al-intiqaam in uu wax loo yaqaano weerar qofka ugu yimid oo uu rabo qofkan inuu dulmiyo oo uu dhibo ka bacdi maskaxda ayuu ka qabsanayaa marka uu maskaxda ka qabsadana qofkii sidii buu ku dhacaya masal caaridkaasi mararka qaar dabcan sida culimadu yiraahdaan xanuunka suuxdintu waa laba qaybood as-sarc al-kabiir wa sarc al-khafi baa la yiraahdaa mid waa qofka automatically meel walba iskaga dhacaya midna qofku laba siyaabo uu noqdo ama inuu xanaaq fara badan yeesho oo marka wixii ka agdhow uu jajabiyo dharkiisa jeexjeexo sarc al-khafi baa la yiraahdaa waa suuxdinta khafiifka ah xaaladda marka sarc al-khafi ayaa masul caaridka jinka habeenkii ayuu ugu yimaadaa dadka waana xaaladda loo yaqaano jaathumkaas marka inta badan gabadha uu suuxdiya ama dumarka xataa la nool masal cishqiga oo jinka caashiqa la nool ee habeenkii loo galmoodo marka hore jinku uu suuxinaya markuu suuxiyo shaqadiisu ka qabsanaya subhanallah idan marka إما عن طريقة الانتقام قفكا إنه ظلمية أيو ربا جنكو أو سبب باكر تمركا أو كسو ويرريو سببها وحا كميدا يعني دادك حانون نظن لنول ويفهمي كرايا دادك حانون نظن لنول ويفهمي كرايا قفكي مالنتو أيمد أما إلمها كان يرمالنتي حانون كان أيمد وحا لغيابا إن وكسو راعي حانون كان حمامك waxa laga yaabaa xamaamka inuu subxaanallah cadaan ku gali jiray ama gabadhan xanuunkan suuxdinta qabta inay xamaamka ka dhaxeesi jirtay waxa weeyaan ka dhax sheeg dumarku caadi leeyeen ka dhax sheekeeyaan xamaamka heesa ku dhax daaraan ka dhax ciyaaraan ama waxa loo yaqaano subxaanallah waxa jirta xaalado qofku intuu meel aado banaan fog ah banaankaas marka wuxuu arkayaa meelo godgodad ah oo qadiim ah oo qodqodan kabacdi waxa laga yaabaa qofkii haduu u baahdo xaajo inuu guto inuu meeshii la aado isdhihi maayo meesha tan ayaa waxa loo yaqaano waxa kaaga imaan karaya waxba ku jiri karaya waxa laga yaabaa wiilkii dhalinyarta inuu meeshii iskaga kaajo meel qadiim ah oo xasharaad iyo wax iska yaalaan oo daldaloosha sida inta badan bahashan loo yaqaano baadihi inta badan lagu arkaa magac bay leedahay dudumada
dudumadu inta badan waa meelaha jimanku ay degaan waxaad arkaysaa dad dudumooyinka ku ciyaaraya dad shiidaya dad tuuraya inta badan meelahay degaan weeyaan idan intuu qofkii saa xaaladaha soo sameeyay ka bacdina wixii ku yimid walciyaadu billah ama xaaladda waxa loo yaqaano qofku inta uu meel wasakha yani inta badan waa jimanku waxyaalaha xaaladahan ogaanay bay ka mid tahay qofkii meel buu wasakh ku tuuraya wasakhdii dad baa ku istaagtaagaya sii maraya soo soconaya sii soconaya ama waxa laga yaabaa biyo kulul inaad xamaamka iska raacisay lidaalika ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo sunnihiisa waxaa ka mid ah wax walba markuu sameynayo xaalad walba markuu ku dhaqaaqayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magan geli jiray bisinkana ku bilaabi jiray waxa way tawakkul cala allahna uu samayn jiray lidaalika waxaa la rabaa subxaana allah waxaa cajiiba qofba wuxuu ku dhahayaa marka ugu horeysa wuxuu ku dhahayaa yacni bilmatalan maalin baan meel ka soo booday markaan meesha ka soo booday xaaladaas halkaasaa la igaga soo booday halkaa la igaga soo booday yani meel buu qofka ka soo dhacay derbi buu ka soo booday waxaa laga yaabaa inuu jinjiifay oo caruurtiisa ay u jiifeen isla markiiba meeshii buu ku dul dhacaya isagoo qofkii markaa bismi illah oran xaaladaasaa qofkii lagaga soo boodaya subxaana allah yani waa xaala gariiba oo jimanka subxaana allah ay dadka marka lagu careeyo ay ka xanaaqayaan qofkii lagu dultunta awlaadiisa in badan oo kamid oo awlaada cagaha ay ka haystaan ama ay ka haystaan waxa loo yaqaano qaar ka haystaan maaragtay shalal ay ku sameeyeen xaaladahaas ku keentay almuhim maxaynu niri can dariiqati al-intiqam weerar uu ku soo qaaday jinku qofka muslimka ah ee uu rabo inuu kaga argoosto in xanuunkan suuxdinta ay keentay xaaladda labaad waxa weeyaan can dariiqati al-ishq qofkan inuuba jeclaaday xaaladda uu can dariiqati al-ishqi ku yimaadana waa xaaladda uu qofkan jeclaaday jinku marka waxa loo yaqaano gabar ha ahaato wiil dhalinyara ha ahaado wuu jeclaaday kabacdi sidii buu maskaxda uga qabsanaya lidaalika jinku maskaxda ma qabsan karaa haa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xaaladaha qofku uu habeenkii hurdo inuu jin u imaanayo jinkaasina 3 cuqdo halkaa dambe ee khalfiyata ra'si uu kaga xirayo lidaalika marar badan qofku wuxuu 10 subaxnimo u toosaya oo salaadii uga tagaysaa cuqad baa lagu xiray culimadii dhakhaatiirtu markay halkaa dambe baareen muakharat ar-ra's baa leeyahay halka daba markay baareen waxa ku jirta qaybo dhan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay oo kala oo qaybtii dareenka qaybtii qofku hurdada ka toosayay meelahaas dambe waxa iswaafaqay diraasadii dhakhaatiirta iyo xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay in waxa loo yaqaan 3 cuqdo uu jinku halka ku xirayo habeenkii shaydaanku wal billah lidaalika 3 cuqdo marka ugu horeysa adkaarta Ilaahay baa mid kamid ay ku furfuranta marka subaxii qofku tooso xaaladda labaad qof markuu weysaysto ayaa cuqdada labaad ka furanta xaaladda saddexaad markuu qofku tukado ayaa cuqdada saddexaad ka furanta lidaalika qofka aan inta sameyn adkaarna aan la iman aanan tukan subhanallah cuqudooyinkaas way ku xirayeen idan marka fi hadith thani baa jira rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu leeyahay samboorsiga badiya oo markaad samboorsanaysan xoog u samboorsada lidaalika halkaas uu fariistaa jinku lidaalika meel kasta jinku uu gali karaya meel kasta uu gali karaya idan waxa loo yaqaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in jinkani sida dhiiga ibn aadanku uu jirka xididada u dhex socdo inuu isna saas oo kale u dhex soco karayo idan aan dariiqati al-ishq ayu xaaladda labaad ku yimaada xaaladda saddexaad baa jira xaaladda qofka inta la sixray gabadha tanbil matalan waxa lagu sixray in tacdiil guurka lagaga maanaciyo saaxirku isagoo dhibaya ayuu khaadim jina u adeegsanaya ka bacdina gabadhii way suuxaysaa marka wiil u yimaado markuu wiil xiriir guur u soo bandhigto way xanuunsanaysaa inta kale way caafimaad qabtaa waa xaaladda uu saaxirku rabo inuu gabadhan ta ku dhibo lidaalika waxa lagu sameeyay tafriiq reerkii baa rabaa in laga kala burburiyo caruurtii unba ka suuxaysa ama adigii baa suuxaya ama odaygii baa suuxitaan bilaabay wal ciyaadu billah وحالة الربا إن ساحرك وكل يبغى كن مسحور كائل النباتي والعياذ بالله حالة صدحات إيش هي حسد كاك أنت وأنا إن بدن اللي يرتا دتك عقل أولاد عقل قبضن قبلها عقل قبضن ويلاش عقل قبضن أنت بدأت ويكون هذا
lidaalika ishaas sababaysa ishaas qofka bini aadamka ku dhacday ayaa masul caashiqana ugu gabaraya jinku seebanaama fursadu ka faa'iideysta insaanka fursad walba oo isagu heli karayo wuu raadiyaa il haday ku dhacdo wuxuu isku dayayaa inuu ishaas si active ka dhigo more ka sii dhigo marka qofkii uu ku sii dhacaya maskaxdu ka qabsanaya marka dambe idan marka il ama xasad ama waxa loo yaqaan masal caaradka oo labada qaab ku yimaada ayaa sababa xanuunka suuxitaanka marka xanuunka suuxitaanka hadaad qabtid ku dadaal sidii aad quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala iskaga cilaajin lahayd laakiin maantoo dhan aadan dhakhtar iyo kiniini iyo xanuun baabi'iyo iyo way dhakhtarku wuxuu ku siinaya musakkin calmatic waxa laga yaabaa markuu xanuunku soo dhaweeyay inaad liqdid hadaad weydidna sidii ku dhacday idan taas weliga aad nolosha dad badan oo 30 sano 40 sano saa ku jira quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala xooj iska cilaaj cilaajaadka dibbiga qaado xanuunkanna waa masul caari oo jin ah ee iska dhici maskaxdaadana ka ilaali adkaarta iyo weysadana xooji taxsiintaada iyo gurigaaga inaad ilaalisidna ku dadaal inta hadda la timaadid xanuunkaas waad ka takhalusaysaa nihaa'iyan inaad ruqyo joogta ka dhigatid adkaarta iyo weysadana aad xooga saartid wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad